salaama daawadayaal halkani waa channelka wararka ee warqaad news tv ku soo dhawaada warbixintan gaarka ah waxyaabaha aynu ku dul istaagi doona waxa qaybka wararkii ugu dambeeyay shirka magaalada Muqdisho golaha wadatashiga qaranka iyo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweynaha dhamaada Farmaajo amniga guud ee dalka ma ku wareejin karaa Rooble ayaan warbixinteena ku dul istaagaynaa daawada muuqaalkan hadduu ku soo gaaro si share gareeyo saaxiibadaada kale la sii wadaag YouTube-keena warqaad news tv na subscribe ka noo saar sidoo kale page-keena ku soo beer si aad u hesho xogaha aynu halkan ku baahino haddii aynu ku hormarno magaalada Muqdisho waxaa maalintii saddexaad galaya shirka golaha wadatashiga qaranka oo gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble qodobo adag ayaan maanta shirka lagu falaqay doona iyadoona wararka hoose oo helina ay sheegaya in shirka maanta la soo gabagabeynayo kaas oo laga soo saari doono warmurtiyeed wax ku ool u ah arrimaha cakiran ee xilligan dalka ka taagan ee siyaasadda iyo doorashada saameynteeda ugu waaweyn yihiin shalay shirka waxaa ka qayb galay xubno ka socday midowga musharaxiinta iyo sidoo kale beesha caalamka iyagoona la weydiiyay aragtidooda ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo sida khilaafka taagan arrimaha xilligan cakiran ee dalka ka jiro wax looga bedeli lahaa dhinaca kale xogaha in helina ayaa sheegaya in golaha wadatashiga qaranka maanta ay dhankooda kulan la qaadan doonaan ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed iyadoona wax laga weydiin doono taladooda ku aadan habka dalka doorasho xor iyo xalaal looga qaban karo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble tiro dhowr jeer horay waxa uu celceliyay in doorashada dalka ay noqon doonto mid hufan isla markaana dhinacyada ay qusayso qolo kastaba uu goonidood ula fariisan doono midowga musharaxiinta ka qaybgalka shirka shalay kadib waxay soo jeediyeen in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Rooble madaxweynaha madaxweynaha dhamaadana faraha uu kala baxo oo musharaxnimadiisa uu ku ekaado sida ay hadalku u dhigeen dhinaca kale mid kamid ah doodaha ugu culus ee maalmahan miiska saaran waa in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble lagu wareejin karo amniga guud ee dalka sida uu dhigayo qodobka 9aad ee xeerkiisa B ee dastuurka Soomaaliya madaxweynuhu waa la taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida 11 bilood ayaa laga jooga markii uu madaxweynaha sharciga ahaa u dhamaaday Farmaajo tan iyo xilligaas waxa uu dalka galayay mowjado siyaasadeed iyo xiisado kala duwan inkastoo aysan jirin qodob dastuuri ah oo sheegaya cidda lagu wareejinayo amniga hadduu madaxweynaha waqtigiisu dhamaado haddana waxaa jiro soo jeedin xooggeedu ka imaanaya xubnaha kamid ah midowga musharaxiinta mucaaradka hogaamiyaasha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni kuwaas oo Rooble ku cadaadinayo in uu dalbado amniga dalka sidoo ula wareegi lahaa Farmaajo Rooble hadda waxay isku dhacsan yihiin dhawaan ra'iisul wasaaraha waxa uu ka amray ciidamada inay isaga ka amar qaataan labada nin xaalkooda haatan waa kacsan yahay haddaba doodaha dhinacyada qaar waxaa ka hor imaanaya doodaha in labada nin ay dirisan yihiin su'aasha taagan ayaa ah laba nin oo isaydo amni ma isku wareejin karaan su'aalaha isweydiinta mudan waxay yihiin sidee Farmaajo lagu qanci karaa in nin ay dagaashan yihiin amniga uu ku wareejiyo inkastoo Farmaajo tiro dhowr jeer qaaday tillaabooyin milatari oo si weyn u dhaawacay dowladnimada Soomaaliya iyo shakhsiyadiisaba haddana waxaa muuqda in qodobka amniga wareejinta uu wax walba ka culus yahay Farmaajo iyo Rooble laba ciidan ayaa hadda ku kala jira gudaha xarumahooda wax aaminaada dhexdooda kama jiraan hadda sharci yaqaanada qaar waxay leeyihiin markii madaxweynaha la doorto waxa uu u horeeyo in lagu wareejiyo waa amniga dalka sidaa daraadeed Farmaajo waxa ugu horeeyo uu wareejin doono waa qofka bedelayo waa amniga wuxuuna ku qasban yahay inuu sugo ilaa dhamaadka doorashada Muqdisho hadda waxaa ka socda shirar u dhaxeeya shanta madax maamul goboleed gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaare Rooble waxaana lagu cadeynayaa inuu qodobka amniga ka dhigo mid kamid ah anjadayaasha kulanka laakiin waxaa la fahansan yahay inaysan maamulada qaar diyaar u ahayn in arintaas laga dhigo anjado quseeyo golaha kolole Farmaajo waxa amniga doorashada ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha laakiin ma wareejin amniga dalka Rooble waxa uu baahan yahay inuu dhiso ciidan si gaar ah u suga amniga doorashada oo ka dhex sameeysto ciidamada una magacaabo taliye maadaama uu isaga u madax bannaan yahay amniga doorashada wadamada reer galbeedka cadaadiska badan saaraya maamulada iyo mira dhalka shirka wadatashiga qaranka waxay xoojinayaan inaan wax badan la gelin qodobka kala wareejinta amniga maadaama uu kaas noqon karo qodob adag oo dib u sii dhiga guud ahaanba doorashada dalka haatan ka socoto oo muddada oo muranka badan dhankeedu hareeyay mucaaradka qaar waxay leeyihiin dalkan doorasho kama dhici karto inta uu Farmaajo haysto hoggaanka ciidanka lama oga sida ay wax isku waafaqin karo dooda mucaaradka iyo qodobka sharciga ah ee ka hor gudban ciidda ammaanka dalka mas'uul ka ah ilaa laga doorto madaxweyne cusub shirka golaha wadatashiga qaranka ayaana qodobada ugu adag ee ugu xasaasisan ee maanta diiradda lagu saari doono waxa qayb ka ah sidii ra'iisul wasaare Rooble amniga lagu wareejin lahaa taasi doodo badan ayaa ku gadaaman lamana oga sida uu dhaqan gali doonto maadaama Farmaajo Rooble khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay
Soomaaliya xilligan waxay dhaxda ka taagan tahay waddo kala guur oo saameyn dhinacyo badan leh. Shirka maanta ee Golaha Wadatashiga Qaranka ayaana laga sugayaa war murtiyeed miro dhal ah maadaama gabagabada maantu yahay sida xogaha hoose ay sheegayaan. Inta ayaan warbixintan ku soo gabagabeynaa saaxiibayaal, waxa aragtidaada qaybta hoose comment-ga nagula wadaag muuqaalkan share garay page-kan YouTube-keena sidoo kale ee Warqad News TV ku soo biira mahadsanideen.